yaa mudan inuu baneeyo booska Edward Ward iyo Jose Mourinho. Manchester United ayaa tartan adag dhexda kaga jirta, waxaa isku haysta laba shakhsi oo midna ah tababaraha kooxda midna waa hogaamiyaha ama madax fulinta ee kooxda. Edward Ward iyo Mourinho tani markii uu bilowday Premier League xaaladooda iyo xiriirkoodii ma fiicna. qaraxa tube ayaad kala socotaa warbixintan, fadlan subscribe channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta xilli walba. Like saar una share garay asxaabtaada. Mourinho iyo Edward Ward ayaa isqabtay muddadii uu furnaa suuqa kala iibsiga Ingiriiska, waxaana uu Mourinho dalbaday ciyaaryahano in loo keeno. Manchester United waa ay diiday iyadoo Mourinho ku eedeynaysa in lacag badan uu kooxda geliyay. sidaa darteed Jose Mourinho ayaa iska dhiga tiray warka, wuxuuna muujinayaa in kooxda ay u baahan tahay ciyaaryahano. Haddaba Edward Ward wuu diiday inuu lacagtii bixiyo, Mourinho wuu diiday ama uu ku adkeysan waayay ciyaartooydiisa qaar inuu isticmaalo isku aadisto. Labadan waxaa ku dhex baaba'ay mas'uuliyadda ay qaadeen kow taageerayaasha, laba sumcadda ciyaartooyda, saddex magacii weynaa ee Manchester United. in Manchester 3 kulan oo horyaalka la ciyaaro 2 gool dar ay la kulanto waliba 2 gool daro xiriira, waxaa u sababa Jose Mourinho iyo Edward Ward. maamulka kooxda iyo macalinka waxaa waajib ah inay isla shaqeeyaan oo wada shaqeyn fiican ay dhexmarto, laakiinse United waxaa maamulaya laba shakhsi oo aan ka dhaxaynin wada shaqeyn. sidaas darteeda su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah yaa mudan Edward Ward iyo Jose Mourinho inuu booska baneeyo.